wasaaradda waxbarashada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa ugu baaqday hay'adaha ka howlgala Puntland inay gacan ka geystaan waxbarashada maamulka Puntland. waxaa warkaasi Garowe inooga soo diray wariyahayaga Saciid Soona. xarunta dhexe ee wasaaradda waxbarashada Puntland ee magaalada Garowe waxaa maanta ka furmay tababar ku saabsan tiro farbarashada ama akhris qorista iyo sidoo kale xirfadda farsamada gacanta oo la doonayo in loo tababaro 300 oo qof. dadka la tababarayo oo laga soo kala xulay iskuulada Nasteex iyo farsamada gacanta ee ku yaala magaalooyinka Garowe iyo Buurtinle. waxaa muddo sanad ku dhow ay baran doonaan casharro la xiriira farsamada gacanta iyo qorista ama farbarashada. wakiilka hay'adda UNESCO ee Puntland Maxamed Axmed Xaashi waxa uu ka sheekeeyay muhiimadda barnaamijkan uu ku fadhiyo, waxaana uu sheegay in qabashadiisa ay iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada Puntland si markaasi dadweynaha Puntland kor loogu qaado aqoontooda. 6 bilood ugu horeysa mashruucani waa farq barasho ama waxa loo yaqaano akhris qoraalka dadka wax baranaya ee ka faa'iideysanaya in la baro qaabka wax loo qoro waxna loo akhriyo. waxaanu wasaaradda waxbarashada ay naga caawisay in la soo qoro 300 oo arday sida loo sheegay mashruucu targetkiisu yahay dad aan waxna qorin waxna akhrin. 6 bilood marka ay dhameystaan hadii Ilaahay idmo waxay u gudbo doonaan farsamada gacanta oo basic skills la bari doona hadii la hayno. mashruucan waxyaalaha uu ka caawiyo wasaaradda waxbarashada iyo bulshooyinka ka faa'iideysanaysa waxa kamid ah in 300 oo arday wax akhris qoraalka la bari doono farsamada gacanta la bari doono. wasaaradda waxbarashada NFE ama waxbarashada dadban agaasinkeeda iyo xafiiskeeda oo la qalabeeyay sidoo kale labada center ama labada xarumood ee barnaamijkan fulin doona iyaguna sidoo kale la qalabeeyay oo qalab isugu jira stationery iyo wixii ay farsamada gacanta iyo ay ku bari lahaayeen laga caawiyay oo loo iibiyay. maanta sidoo kale hadii Ilaahay idmo waxaanu xafladda tandaafurka uga faa'iideysanaynaa qalabkaas qayb kamid ah oo ay naga caawisay iibinteeda hay'adda UNDP maadaama gaartay inaan wareejin doono hadii la haydmo ay banaanka noo taagan tahay gawaaridii ay qalabka saarnaayeen. agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Puntland Maxamed Cali Faarax waxa ay labaduba hay'adaha ka howlgala Puntland ugu baaqeen inay xoog saaraan dhinaca horumarinta waxbarashada Puntland. hay'adaha la fadhiya halkan bahwadaagta waxbarashada dawlad inta waxaan baaq dhanbaala waliba si rasmi ah wasiirkuna aan filayo inuu isna xoojin doono hadii Ilaahay idmo baaq rasmi ah sidaan ugu soo jeedsannahay non formal education-ka inaan wax ka qabanno. annaga waxaan noo tahay wasaarad ahaan xilligan la joogo baahiyaha ugu waaweyn ee wasaaradda ka mid noqon doona hadii Ilaahay idmo intii energy aanu gelinay waxbarashada toosan ayaanu gelin doonaa hadii Ilaahay idmo waxbarashada dadban. waxaan rabnaa inaan isla qaadano percentage iyo number cad 2017 aakhirkiisa imisa qof ayaa waxna bartay ayaa waxna qori kara waxna akhri kara. campaign noocaas oo ballaaran baan u baahannahay niga furuhiisu inuu akhriska yahay walidaalika in lagu dadaalo qofka marka uu horeysa akhriska in la baro farta in la baro sida tirada iyo xisaabta loo xisaabiyo waxay qayb ka noqonaysaa aqoonta qaybaheeda kale qofku inuu asagu markaa dugsado marka halka la gaarsiiyo ayaa waxa bilaaban karta wixii jaanisay ka tagay qofka weyn ama maxaan ku raahdaa aqoonta ka maqnaa in loo kobciyo oo dadaal badan lagu bixiyo. marka run ahaantii waa fursad weyn oo gaar ahaan dadka aan waxbarashada rasmiga ama formalka ah tooska dadka aan u helin waqtiga fursad la siinayo weyn. gabagabadii Maxamed Axmed Xaashi wakiilka Puntland ee hay'adda UNESCO waxa wasaaradda waxbarashada Puntland ku wareejiyay qalab xafiiseed loogu talagalay in 300 ee la soo xulay waxa lagu baro. Socodsoona Somali Channel Garowe.